nabadgelyo saaxiibayaal kuna soo dhawaada wararka caalamka iyo Soomaalida qodobada ugu waaweyn ee warkayaga aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah wasiirka amniga iyo ciidamo uu hogaaminayo oo saaki baajiye banaanbixin lagu waday inuu ka dhaco magaalada Muqdisho ee lagu taageerayo madaxweyne Farmaajo wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho oo saaki xiran iyo waliba shirka magaalada Muqdisho ku dhexmaraya maamul goboleedyada iyo waliba ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka oo la isku fahmi la'yahay iyadoo maamulada qaar ay diidan yihiin inuu amniga la wareego ra'iisul wasaaraha Soomaaliya isla markaana laga wareejiyo madaxweyne Farmaajo Axmed Madoobe oo Rooblo ku eedeeyay inuu waqti ku luminayo shaqo aan loo dirsan isla markaana uu doonayo inuu shirka sii daba dheereeyo iyo waliba xaaladda magaalada Muqdisho caasimada dalka Soomaaliya ayaan halkan idinkugu soo gudbin doonaa iyadoo xiisada u dhaxaysa ra'iisul wasaare Roble iyo madaxweyne Farmaajo si weyn looga dareemayo intaas daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa markana waxaad ku soo dhawaataan iyaga oo fidsan sida aan ogaanay waxa magaalada Muqdisho ka socday banaanbax lagu taageerayo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo abaabulkiisa banaanbaxa waxaa abaabulayay xubno ka tirsan maamulka gobolka Banaadir wuxuuna ka socday degmooyinka kala duwan ee gobolka iyadoo dadka si hoose loogu qancinayay inay ka soo qayb galaan banaanbaxaasi banaanbaxa oo maanta oo khamiis lagu waday inuu ka dhaco magaalada Muqdisho ayaa si weyn loogu taageersanaa madaxweyne Farmaajo iyo dadaalada uu wado xogta aan helaynay waxay tilmaamaysaa in Cali Yaro oo ku magacaaban gudoomiye ku-xigeenka dhanka amniga ee maamulka gobolka Banaadir oo si gaar ah gacanta ugu geysanayay abaabulka banaanbaxa la doonayay in lagu muujiyo taageerada Farmaajo ka soo banaanbaxa ayaa sidoo kale doonayay in lagu cambaareeyo beesha caalamka looguna sheego inay faraha kala baxda arrimaha Soomaaliya arintan abaabulka banaanbaxa ayaa markii uu maqlay wasiirka amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur oo u janjeera dhanka mucaaradka ayaa waxa uu ciidamo aad u fara badan uu soo dhawbay magaalada Muqdisho xaafadaheeda iyo jidadka waaweyn iyadoo xalayba la xiray ee daljirka Dahsoon oo lagu waday ama la filayay inay suurtagal tahay in banaanbaxa uu ka dhaco ciidamo booliis iyo waliba kuwa Maleeshiya oo taabacsan Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa lagu arkayay daljirka Dahsoon kuwaas oo shacabka iyo waliba dadkaba xitaa lugeynaya u diidaya halkaasi dowladda federaalka gaar ahaan ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya xafiiskiisa ayaa si weyn uga hortagay banaanbaxaasi lagu waday in lagu taageero madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo abaabulka banaanbaxan ayaa ku soo aadiyay iyadoo Muqdisho uu ka socdo shirka golaha wada tashiga qaran ee ra'iisul wasaare Roble iyo madaxda shanta maamul goboleed ee dalka waxaana miiska saaran hanaanka amniga qaranka loogu wareejin lahaa madaxweyne Farmaajo wixii ka dambeeyay markii uu fashilmay afgambigii la sheegay in Farmaajo uu soo abaabulay ra'iisul wasaaraha waxaa dhalatay dood xoog leh oo aan weli miro dhalin taas oo ah in Farmaajo laga wareejiyo awoodda hogaaminta amniga qaranka madaxda dowlad goboleedyada qaar ayaa diidan in Farmaajo laga wareejiyo mas'uuliyadda amniga dalka halka ra'iisul wasaare Roble iyo xubno ka tirsan xukuumaddiisa ay u xil duubayaan sidii amniga guud ee dalka loogu wareejin lahaa haddii aynu aadno shirka magaalada Muqdisho maalintii afraad ka socda lafta gareen iyo qoorqoor ayaa waxa ay diideen laba qodob iyadoo markaasi qodob kalena la isku raacay qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada ayaa shalay si rasmi ah u diiday in shirka golaha wada tashiga qaran ee ka socda Muqdisho isku raacay in amniga dalka lagu wareejiyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble sidaan ogaanay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ay gadaal ka riixayaan golaha midowga musharaxiinta ayaa si aad ah u doonaya in shirka uu isku raaco qodobkan haddii aanay taasi dhicin aanay dalka doorasho hufan ka dhici karin qoraal talaadadii ay soo saareen midowga musharaxiinta waxaa ku jiray laba qodob oo la xiriira amniga waxaana lagu yiri waa in ra'iisul wasaaraha iyo golaha wasiirada ay si buuxda mas'uul uga noqdaan amniga dalka madaxweynihii horena uu ka ekaado musharaxnimadiisa labada sida uu u dhigayo dastuurka ku meel gaarka waa in ra'iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa ay xaqiijiyaan in ciidanka laga dhex saaro arrimaha siyaasadda si kastaba madaxweyne goboleedyada Galmudug iyo Koonfur Galbeed Axmed Qoorqoor iyo Cabdicasiis Lafta Gareen ayaa ku gacan saaray arrintan iyagoo ku dooday in amniga dalka uu ka baxsan yahay arrimaha doorashada waxaana ay sidoo kale sheegeen in madaxweyne Farmaajo horey amniga doorashada ugu wareejiyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya qoorqoor iyo Lafta Gareen oo si toos ah ugu xiran shirka ku metelaya Farmaajo ayaa sidoo kale diiday in odayaasha dhaqanka ee soo xulaya ergada lagu koobo 135 oday ee heer federaal qodobkan ayaa ka mid ah qodobada ay shalay dalbadeen midowga musharaxiinta kuwaas oo qoraal ay soo saareen ku yiri
odayaasha dhaqanka ee soo xulaya ergooyinka waa inay noqdaan kuwii ka tirsanaa 135 oday dhaqan waana in la faafiyo liiska habraacyada inta aysan doorashadu dalban. xogtaan helnay ayaa sheegaysa in shirka oo mar kale maanta la isugu laabanayo aanu isku raaci doonin dhammaan qodobada xasaasiga ayna u badan tahay in laga soo saaro qodobo macno badan sameynin oo u badan kuwa guud. qodobka ugu muhiimsan ee shirka la isla ogolyahay ayaa ah in waqti cayiman oo 2 bil ah loo qabto doorashada Soomaaliya in lagu soo gabagabeeyo. qodobkan ayaa ah mid ay si aad ah u doonayso beesha caalamkaasi yeeshee marar badan oo sidan oo kale ah loogu qabtay doorashada laguna guuleysan in lagu soo dhameystiro. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa doonaya in doorashada ay sii daba dheeraato isla markaana oo dhaqaale fara badan oo ka sameeyo xilka uu markaasi ku magacaaban yahay ee ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya. madaxweynaha waxaa maanta galay maalintii saddexaad ee shirka golaha wadatashiga qaranka Soomaaliyeed ee shir gudoominaya ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble kaasoo ay ka qayb galeen madaxda dawlad goboleedyada Soomaaliyeed iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir. shirka laba qayb ayuu ahaa. galinkii hore waxa ay madaxda golaha wadatashiga qaranka ay kulan la qaateen ururada bulshada rayidka kuwaasoo ay ka dhageysteen talooyin la xiriira gaabisyada ka jira doorashooyinka iyo sida lagu sixi karo. waxaa markii ay kulamadaasi dhameysteen golaha wadatashiga qaranku wuxuu u ballan qaaday ururada bulshada rayidka inay tixgelin doonaan soo jeedintooda. kadib kulankii caadiga ay sii wateen madaxda waxaa laga wada hadlay arrimo kala duwan oo ay ka mid ahaayeen arrimaha amniga doorashooyinka oo si aad ah oo qoto dheer looga hadlay. waxaa kaloo laga hadlay arrimaha hufnaanta doorashada iyo weliba jadwaleynteeda. runtii si saraaxad leh ay uga doodeen madaxda golaha wadatashiga qaranka Soomaaliyeed kulankoodii maanta. qodobadaasna way sii socon doonaan maalmaha soo socda. had iyo jeerna waxaan shacabka Soomaaliyeed la socodsiin doonaa wixii go'aana oo ka soo baxa madaxda golaha wadatashiga qaranka Soomaaliyeed. Jubbaland Axmed Madoobana waxa uu ku eedeeyay ra'iisul wasaare Roble in waqti uu ka luminayo shaqo aan loo dirsan. kulankii ee golaha wadatashiga qaran waxaa looga hadlay arrimaha amniga iyo tan dalka sida loogu dhaqmayo madaxweynaha waqtigiisa uu dhamaaday. kulanka oo ahaa mid aad looga dooday arrimaha kor ku xusanaya waxaa daliil adag loogu soo jeediyay ra'iisul wasaaraha iyada oo la sheegay in waqti gelinaya arrimaha loo igmaday ee doorashooyinka waqtina uu ku lumin dagaal aan muhiim u ahayn geedi socodka doorashooyinka. madaxweyne Axmed Madoobe ayaa ku eedeynaya ra'iisul wasaare Roble inuu sameynayo waxa uu ku sheegay rarka laga badinayo ratiga taas oo uu ula jeeday in Roble kursigiisa uu isticmaalayo in dagaal siyaasadeed aan muhiim ahayn uu ku galo. shirkii ayaa lagu kala soo tagay iyada oo aan wax go'aan ah laga gaarin arrimaha amniga dalka iyo doorashooyinka iyo qaabka loola dhaqmayo madaxweyne Farmaajo. ina adeerow inta naga deysid ilaa meereysada aad ku jirto shaqadii lagu igmaday qabso taas oo ah doorasho uma baahnin in waqti ku lumino dhacdooyin la soo dhaafay war maxaa ka qaldan sida waxa yiri madaxweyne Axmed Madoobe. guud ahaan daawadayaal warkeed kala socoteen channelkan waa naga inta